afhayeenka xarunta Khaatimul Anbiyaa ee laga maamulo howlgallada Iran Ibrahim Zulfakhari asagoo ka falcelinaya wadahadallada uu sheegay madaxweyne Trump in ay socdaan ee lagu joojinayo dagaalka waxa uu yiri Mareykanka waxa uu la hadlayaa uu la xaajoonayaa waa naftiisa oo kaliya Mareykanka xali waxa uu sameeyay wax aysan qaadan karin dawladaha qabka telefishinka Israa'iil ka soo baxay Janaan 12 ayaa baahiyay 15 qodob ay ku jiraan heshiis uu Mareykanka u gudbiyay Iran si loo joojiyo dagaalka qodobada Mareykanka uu diyaariyay ee la baahiyay waxa kamid ah in la burburiyo awoodda nuclear-ka Iran ay hadda leedahay in la mamnuuco Iran inay horumariso ama ay hodmiso wax nuclear ah gudaha dhulkeeda ah in uranium-ka la hodmiyay lagu wareejiyo hay'adda tamarta adduunka ee nuclear-ka ee loo yaqaan IAEA in la xiro lana burburiyo xarumaha nuclear-ka ee Natanz, Isfahan iyo Fordow in hay'adda atomikada adduunka loo ogolaado inay si buuxda u hesho xogta dhamaan in la joojiyo taageerada ay siiso kooxaha ku sugan bariga dhexe Iran sidaas oo kale in la joojiyo maalgelinta iyo hubaynta kooxaha ay taageerto Iran ee gobolka in marinka Hormuz uu ahaado mid furan oo aan la xiri karin in dib loo dhigo go'aanka ku saabsan gantaalada balaastigada tan oo la macnaha wadahadallada laguma soo darayo qodob la xiriira awoodda gantaalada Iran in gantaalada Iran loo isticmaali karo oo kaliya difaac in la qaado dhammaan cunaqabatayntii hore loo saaray Iran in la taageero barnaamijka nuclear-ka oo rayid ah oo ka socda xarunta Bushehr in la joojiyo hanjabaadada ah in si toos mar kale cunaqabatayn loo saaro Iran dhankeeda Israa'iil ayaa wali u aragta dagaalka Iran in wali la gaarin guul istiraatiiji ah waxa ayna doonaysaa dhowr toddobaad in dagaalka la sii wado sida ay wareysay warbaahinta Mareykanka NPR ciidanka ilaalada kacaanka Iran ayaa sheegay inay soo rideen diyaaradda nooca aan duuliyaha lahayn ee lagu magacaabo Hermes xilli ay mareysay hawada Tehran sida laga soo xigtay wakaaladda wararka ee Mizad ciidanku waxa ay adeegsadeen nidaamkoodii ugu dambeeyay ee difaaca cirkaasi ay u soo ridaan diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee sida hubka waxaan dhowr jeer nooc diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee loo yaqaan Hermes oo fuliya howlgallada kala duwan waxaana inta badan loogu talagalay inay ururiyaan xogta sirdoonka noocan cusub ee diyaaradaha noocan ah oo lagu magacaabo Hermes 900 oo dhererkeedu uu gaarayo 8 mitir ayaan soo ridnay ay yiraahdeen Iran ayaa sheegtay inay burburiyeen inta uu dagaalka socday 132 diyaaradood oo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn tan iyo markii uu dagaalka bilowday 28 bishii Febraayo ee sanadkan hay'adda caalamiga ee qaramada midoobay atomikada haddii aynu eegno wararka degdega ee soo baxaya shan qarax ayaa hadda laga maqlayaa bartamaha Tel Aviv kadib markii ay Iran gantaalo ku weerartay sida ay warisay Al Jazeera oo ka soo xiganaysa raadiyaha ciidanka Israa'iil Iran ayaa markii ugu horeysay soo bandhigtay shuruudaha lagu joojin karo dagaalka in Mareykanka si buuxda u bixiyo magdhowga dhammaan khasaaraha soo gaaray Iran in ammaanka Iran mustaqbalka si buuxda loo hubiyo taa oo ka dhacaysa Mareykanka in uu ka baxo ay gantaalo ku dhufatay Israa'iil Kuwait Urdun Bahrain hal gantaal ayaa ku dhacay taangi shidaal oo yaala garoonka diyaaradaha caalamiga ee Kuwait taas oo keentay in uu dab qabsado hay'adda duulista rayidka ayaa sheegtay in dabka la xakameeyay mana jiraan ay tiri wax khasaare ah